ongea na yeye Kisomali huyu. Sawa. Hello, how are you? Makaa. Ana baayo. Ana wadaqfa. May aba runta magaciis. Aba runta. Ana binur. Muulize hiyo maswali. Muulize. Ana maalutara. Ana binur. Kuna majina yake anaitwa Ana Nur. Ma qaysa na jirta? Ma qaysa na jirta? Ma qasash. Nikano kuqaba. Anasema huyu ni bwana yake. Huyu. Na bado ndiye ako kwa birth certificate. Hebu mzee mama yake na babake wanaitwaje? Baba ameniambia anaitwa Nur. Hebu nisaidie hiyo baba. Baba anaitwa Nur. Hebu nipatie na hiyo ID. Hoida. Baba anaitwa Nur. Na sasa hapa tuko na baba anaitwa Abdi Gafar Ahmed Yusuf ambaye ndiye iko ID huyu suspect. Huyu amemuoa, amefake birth certificate kama babake. Hebu muuliza ako na miaka ngapi? Abare na kaisa na kista. Wote najira. Anasema 14. Miaka 14. Huyu ni mtoto wa miaka 14. Hebu muulize. Alikuwa amefika class ngapi kabla aolewe na huyo mzee? School madigeta abare class kai digeta. Tuition digeta. Ajaenda shule anasoma tuition kwa nyumba. Na sasa hebu huyo mzee walikuwa wanajuana ama alimpata aje? Hebu muulize. Kama ni arrange marriage hivi ama walitoana wapi na huyo mzee? Abare. Nikanoda kinteske heshen. Hoida udarte. Hoida kuku darte. Mukta. Anasema ni arrange marriage. Anajuana na mamake. Huyu jamaa, huyu mzee anajuana na mamake. So mama pia ni suspect, anafaa kushikwa. Hebu muulize ni Mkenya ama ni wapi? Nyumbani. Ntekutala taware, guri ntewa. Mandera ni Mkenya. Mandera. Huyu ni Mkenya. Huyu ni mtoto anafaa kuwa shule saa hii grade 10 ama grade 4. Grade 4, grade 5. Ameozwa mwanaume ambaye amekuwa kilala na yeye anamtesa, bara mtoto, huyu ni mtoto, huyo mzee anamtesa, mtoto anaumia, mtoto analia usiku barara, unajua huyu ni mtoto. Huyu ni mtoto kabisa, akimkamate huyu mzee na wapeleke mpaka kotini ndio tujue. Huyu mzee lazima akuwe funzo kwa wengine wenye wameoa watoto under age. Wanatuharibia sisi kama Waislamu, wanatuharibia dini sasa. Umelala jamaa ujailala na yeye? Sijalala. Na yeye mnakaa kwa nyumba moja? Msichana. Mzee, unataka tuende tufanye examination kwamba hujalala na yeye? Examination? Si mnatafanya. Mtoto ni virgin? Ni virgin na unakaa naye kwa nyumba na umemuoa. Unaelewa lugha ama uongeleshe Kiswahili? Hadi umelala na yeye? Unanidanganya, si ndio? Nimekuuliza. Unadanganya hadi hujalala na yeye na ushalala na yeye na unatesa yeye. Watu wenye wametupigia simu walisikia mtoto akilia usiku bara mtoto enjoy. Yaani mtoto sababu ni mtoto analia. Unalala na msichana? Si utafute mama mwenye atakuwa ana enjoy, watu wajue wakipita nje wanajua ni kitu mzuri. Mimi huyo msichana nimeoa. Umeoa na hata kama umeoa hauruhusiwi kulala na under age. Unalala na under age. Ni karatasi wameandika ya mkono. Ati ndio marriage certificate. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها قلبي قانا قال سعودة channel كينا واحد ليه سورة دواده هدي ايتها مركي كوباد اسواب بقوتي channel كينا فضلا سبسكرايب ليه قنبال الكفرس يدو نقوتي داودها كوباد ايه داودها برنامج شدينا سيدا فيديو هردعي سدقاي سنيسين وعرين رونتي قف كستو او دمير له مركو دقايستو اما بمقلو رونهانتي دمير كيسو ودقاجنايو دمير كإسلامنimo ودقاجنايو والله cunugtan yarta ah kaligeed ma aha waxaa jiro gabdho yar yar oo nooceedo kaleeta ah oo xaaladda cunugtani ay ku jirtay run ahaantii wali al'aankan aynu taaganahay ku jiro runtii gabadhan yarta markii aan arkay muuqaalkeeda jirkoodan ayaa idubaxiyay aad iyo aad ayaan uga naxay run ahaantii waa ilmo yar waa saqiir 14 sano ayay maanta oo la taagan yahay jirtaa haddaba waqti xaadirkan arinteeda la soo bandhigay ee arinteeda banaanka la keenay la soo fashilay ayay wixii jirtaa 14 sano hadda fiiri
14 sano ayay jirtaa waqti xaadirkan hadda la taagan yahay meeqa sano ka hor ayaa odaygan 60 jirka ah uu soo kaxaystay oo uu soo guursaday oo uu bulcaws ku soo xariistay 2 sano ka hor ayuu gabadha yarta soo guursaday 2 sano ka hor ayuu ka keensaday guriga hooyadeed 2 sano ka hor meeqa jir ayay ahayd cunugtan hadda maanta 14 jirka ah 2 sano ka hor meeqa jir bay ahayd 12 sano ayay jirtay waa ilmo yar oo saqiir oo sabiya hadda maanta cimriga ay taagantay way ka sii yarayd uu soo kaxaystay waalidkii dhalay hooyadii dhashay ee dihatay ayaa waxay ka toorbiday gabadheeda yarta ah ee saqiirka ah in ay oday waayeel 60 jir u guuriso deedna ay lacag dhaafsato haddii intuu soo guursado ilmaha yar uu soo kaxaysto guur maaha waxani haddii intuu soo guursado oo guri wanaagsan iyo meel wanaagsan uu dejin lahaa oo nolol qurux badan xataa uu gelin lahaa maxay ka dhimi lahayd uu soo kaxaystay guriga hooyadeed ku nooleed iyo abaheed buu ka soo kaxaystay ehelkeeda lacag bay dhaafsadeen meel qof bini aadan oo ku noolaado meeshii ugu xumayd ah ayuu hooy uga dhigay oo uu gabadhii ku soo xariiray 2 sano ku haystay 2 sano ninkan booliiska ah ee askariga sargaalka ah ee u dhashay waddanka Kenya ninkan ayaa isaga oo kormeer ku sameynayo guryaha Soomaalida iyo xaafadaha Soomaalidu ay degan tahay wuxuu arkay ilmaha saqiirka ah ee caloosha u dhaansan tahay ee haddana saqiira ee meesha ku jira waraysi markuu la galayna oo gabadhii waraystayna waxay u sheegtay wuxuu arkay inay ilmo yar oo saqiira tahay waxayna u sheegtay naag la qaba inay tahay meesha degan tahay gabadhii uu waraysanayay ay uga warramaysay in la soo guursaday oday inta leeg uu soo guursaday oo halkan degan tahay ilin baa indhaheeda soo dhaaftay way ilmeynaysa way ooysay gabadh yareed ilin ayay cishan weyday run ahaantii waa arrin laga naxo una baahan in wax laga qabto bulshadeena Soomaaliyeed in ay wax ka qabtaan arrin loo baahan yahay way arrintaani ninkii intii kagama harin ma deyn ilmihii yaraa cidla kuma sii deynin tilaabo sharciyeysan ayuu ka qaaday odaygii gabadha soo xariistay wuu ka tiinadeeyay sharciga waddanka u degsanna waxaa ka mamnuuca kaba soo tag wax kale ka soo tag sharciga u dansan waddanka Kenya waxaa ka mamnuuca ilmo yar oo 12 sano iyo 14 sano jiro iska dhaafay 18 sano ilmo ka yar in aan la guursan karin guurna uusan gelin haddii la kaxisto guri la geystana arrintaasi ay tahay arrin kufsi ah waa 18 sano xagee joogtaa 12 sano iyo 14 sano ilmo jira oo haddana uur leh waa la jeebeeyay sharciga Kenya ayaan hadirtaan la horgeeyay ninkii sharciga Kenya ayaana wax ka qaban doona gabadhii hadda waxaad fiidiyoogada dhageysanayseen ama aad arkayseen ayadoo la wareysanayo ayadoo maxaa la yiraahdaa Allahumma istacaanayay in u kala turjumaysa gabar Soomaaliyeed ah oo afkeenyaatiga taqaana cunugta yarta ana Soomaali kula hadlaysay xataa sharcigiisii iyo baasaboorkiisii ayuu wuxuu ugu qoray markuu gabadha soo kaxaysanayay uguma qorin inuu qabo sharcigiisii sharcigeedii wuxuu ku qoray inuu aabba u yahay uu aabaheed yahay aabaheedna ma aha wuu qabaa oo naag ahaan buu soo kaxaystay guriga u degan tahay haddana uur ayay leedahay caloosha u dhaansan ilmihiisi ayay sidaa wuxuu ku andacoonayaa ilmaha yar saqiirka ah uu soo kaxaystay waan qabaa oo waa naag weyn oo 17 sano jirta ma ilmaha intaa la eego aad u jeedin dhalini baa la yiri dhafoor bay ku taalahay ilmaha saqiirka oo intaa la eego aad u jeedin miyaa 17 sano jirta waa ilmo yar oo sabiya saqiira wallahi horta arrintan ayadiina wuxuu ka dhaadhiciyay inay sheegato 17 sano iyo 20 sano inay sheegatay buu ka dhaadhiciyay ilaan wuu cabsi galiyayo wuu handadayo waan ku dilayo qoortan ka goyn booran haddaad intaa sheegatid aad jirtid waa inaad cimri ka weyn sheegatid da'dii buu u weyneeyay cimrigii buu u weyneeyay magaceedii wuxuu ka dhigay magaciisii buu ku daray aabaheedii iyo nayaheedii wuxuu ka dhigay inuu isagu dhalay sharcigiisii waxaa ku qoran gabadhii uu dhalay inay tahay waana qabaa oo guri ayay u deganta uur bayna u leedahay ilaahay ku dhaariye miyaan gabdhaha yararka ah ee saqiirada ah ee sabiyaasha ah ee qangaarka ahna beebiyaasha ah miyaan xaq daro laga galay aysan ahayn arrintaas xaq daro laga galay bal haddii xaatan xataa gabadha yar haba loo xarayn lahaa wiil yar oo ficeedo oo kuraya maxay ka dhimi lahayd oo loo gurin lahaa
oday 60 jir ah ama dhowr 60 jir ah oo awowgeedii shanaad noqon kara ayaa waxa loo galiyay bulcaws حتى قولي قروح بدن قولي في الله الدنيا هدي اللي تجينا حول إسرائيل هابا قبل يري لحد نورال بيسكت جت قروح بدن ويسكسو إفتي ما يساوي وحوي ماشي وقبل جاي وبالعوس هل كاسي قبل كسر سنة يدور فات سنة ديفت كم وقته يرفعت كم وقته يهوج يبقى قبل كم وقته قف كستو فيديو قاعد دعوة ذي حالب قف كستو فيديو قاعد قبل وقرع بوكن هاي رونا هانتين وأهل لقى قرع بوي إلهي إذا أبورتي إنت كعبستان والدو كداية قبلها يرير إسقيرة إسبياشة بيبياشة حق درد أكجليسان وأضيال ويلا أو ياشود لاليك أدو حرين إنسان أيجيون قان جارين أيجيون جور وحبك الجرنينين رقمه وحبك الجرنينين جوال وحبك الجرنينين إنت هالكاتونك أكسو دكتان الأفجم بأكسو توريسان إله بإذا كداري كداية قبلها يركع إرساقد إلهي ببحيه حداد وإذا واحد عنتان شارعي أنت فرستان توكسدا تاسا إذن دانتا أنت تقبليه إنه يركع أدهوق إيهلاك أسوجيدن الهيدين أنت سوا إيقا طلو ولا الجنة كوا جنة الكيني حتى تكون عصبتهاي سبسكرايب نور هنقا حسدين كان بلايلك فرصي أدون قوتي داودها كوا بعد نو شير كادا إيا لايك تادا إيا كومنتي وقروح بدن أنت بوا أباهن هاي هنقا حسدين نو سمين وحا إذا كقلت يا سلامتي إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.